الله أكبر الله أكبر سومالي لاند هنولاتو سومالي لاند هنولاتو بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما أنت وحدكم السلام يا سلامة الإسلام كمر لباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنيقة oo ku hadlaya magaca xisbiga waxaan si qalbi furan iyo laab furan iyo gacmo furan ugu soo dhaweynayaa siyaasiyiinta magaca iyo maamuuska kule Somaliland ee dhinacayga taagan waxaan leeyahay ku soo dhawaada xisbiga wadani oo ah xisbi aan la kala lahayn waxaan ilaahay uga baryayaa ilaahayna uga mahadnaqayaa inuu inaga saaray abaartii soomareebtada ahayd raxmaddiisaynu weydiisanaynaa madar khayr qabaynu weydiisanaynaa ragga halkan maraya ee haldoorka ahi waxaa laga yaabaa inuu kulmiyo isleeyay halkaasay ku dhammaatay filimkii laakiin waxaan u sheegayaa waa hordhicii hoggaaminayey guluf badan oo soo socda waxaynu sugaynaa haldoorka Somalilan ee maroodi jeex ee awdal ee togdheer ee sool ee sanaag insha allahu dhowaan ayay shaashadaha tv ka muuqan doonaan waan leeyahay ragga halkan jooga ee gobolka maroodi jeex ka soo jeeda waxay inoo bilaabeen oo ay albaabka ka fureen Somaliland aan ku riyoonayo oo ah Somaliland qabyaaladda ka caagan qabyaaladdu ha dhacdo himilada xisbiga waxa weeye in la abuuro Somaliland loo siman yahay Somaliland la wada leeyahay Somaliland aan la kala lahayn xilkeeda iyo xoolaheeda iyo xuduudadeeda inaan midna la kala lahayn oo ninka sayrac ku dhashay uu laascaanoo degi karo oo laga sheega waxaynu doonaynaa in la mideeyo shacbiga Somaliland oo la walaaleeyo waa himilada koowaad ee xisbiga wadani بريها واحد بغلي كل بيه وحو كحناقي مال بيه قدام بيه مرعا وين مدودي ما توحى لنا هرقيسة وين مدودي دمان سوبان لنا وين مدودي سهدي لها كنكم سومالي لان حنونا بدن باي كل بيه كغاطة وهكذا آمناديو كلمتي عند حلك وديبتان كل مية بريق معاندك وان حسوستا والله بقى قالوا لك مدحوين ريالك بحيي وحي كسمين شرين أدا حسبك وطني دورتان شعبك غير Somaliland آد هاي دقيستان وحان بلان قاضينا إنه أمانة النور ديبتين aanu u ilaalinno oo ay ugu horrayso hantidiisu waxaannu kaloo u ballan qaadaynaa inaannu ka daba tagno hanti kasta oo sifo aan sharci ahayn lagu qaatay hanti kasta oo sifo aan sharci ahayn lagu helay waxaannu u ballan qaadaynaa inaannu gacanta shacbiga ku soo celin doono بريهان دمبه waxaa dhacday oo soo noqnoqday dhacdooyin doorashadeena khalkhal gelin kara amnigeena khalkhal gelin kara waxa ugu horeeya xariga joogtada ah ee saraakiisha wadani heer kasta oo ay leeyihiin heer qaran heer degmo heer tuulo wax kale markaas ka ilowdo tobankii isha ugu dambeeyay waxa la xidhay mas'uuliyiin ka badan 20 oo ka soo jeeda xisbiga wadani
وقبل كتقدر قبل كالساحل iyo gobolka Maroodijeex ka tirsanaa wali qaar ba xabsiga ku jira xisbigu uu dul qaatay dalka isagoo eegaya duruufihiisa laakiin waxaan u sheegaynaa in xisbigu aanu dulqaad dambe samayn doonin oo uu ka falcelin doono dhacdooyinkaasi hadday soo noqnoqdaan waxa iyana soo noqday oo ah Somaliland ku cusub